السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantay waxaan idin haynaa qorshe si boqolkiiba boqol ah kuwa anfacayo hadii aad aqbasho ina mari aan dib ugu laabanay sanadkii tagay 2021 waxaan ka doonaynaa sanadkaas waxaan ka doonaynaa inteena naga mid ah sanadkaas qof walba waxa uu jeclaa in noloshiisa uu horumariyo sidoo kale waxa uu lahaa riyooyin badan waxa dhici karta riyooyinkaas qaar kamid ah inay noqdeen rajo oo kaliya waxaan ula jeedaa rajo macna oona rumoobin inay si rumoobin ورجع بس إنه خذين هذا وحى إنه عرفتي سنة كا لبض كوني لاتني لبض قلت قفل بنا وحالها وحى ولا شاء لوجر الهاني ومركي هو إذا إن شيء ودون كان إيمانه مركل لبعضنا ومركل عنقو أنسنا إن نفتنا عن هرمرنا أوسي ولي بقى يلنا قشة سنة كان إنه عرفتي لبض كون لبعتني لبض وحان جعلنا هاي إن أنا نفتنا هرمرنا كسبينا سيدا وقالنا ما أنت إنه مجرى قف جعل sida uu 2020 koodaha in sanadkan ay ugu dhamaato 2022 qof walba inaga mid ahana waxa uu leeyahay qorshooyin waaweyn laba mid baa ugu badnaatay mid koowaad waa in daraasada waxbarashada uu number 1 ka noqdo ama meel u dhow u gaaro mid labaadna waxay tahay qofka in uu dhaqaale ahaan kobco si nafsadiisa mas'uuliyad naftiisa si buuxda uu ugu qaado dhamaanteen waxa wada ognahay duruufaha adag ee waxbarashada lagu qaato miskii duruufaha xilliga waxbarashada hadii aan dib u milacsano si aan u xasuusano gadaasheena sidoo kale horteen u iftiinto waxa la soo maray xilli aad u adkeed waxbarashada xitaa aalintaankeeda waxa laga yaabaa qofka in laga soo celin jiray iskuulka inuu tago sidoo kale in lacag la'aan darteed loo soo burin jiray jaamacad adigoo dhigatay in lagu weydiin jiray lacagihii waxbarashada oo imtixaanka lagu ciqaabi jiray waxa laga yaabaa dadka qaar in ay dacsanaan dugsiga aadi jireen in qodaxa ama qoraxda oo aad u kulul waxba aynan haysan darteed ay cagcadeeyaan ama ay dacslaanta ismar jireen maanta oo xilligii waxbarashada lagu jiro qofka hadii uu dib u xasuusanin dhibaatadaas haba ugu sii darnaato markii aad waxbarashada ka soo noqoto oo aad guriga timaado in aynan jirin cunno aad cunto ama aad haysanin xitaa waxa laga yaabaa marka qaar hooyadaada quraacaysa ay ku quraacan lahayd in ay adiga ku dhigto oo ay ku tiraahdo adiga ku quraaco walaalahaaga iyo nolosha oo dhan in ay duruuf adag ka dhex jirtay maanta oo aad soo kortay oo ahaan yara weynaatay hadii aad waxbarasho ku jirto oo aad kaliya leedahay waxa aan rabaa in aad waxbarashadeeda wato qorshahaygan ayada uu ahaado marka aad soo dhameysatay kadibna aad tiraahdo markaas aan ka fikirayaa qorshe kale waxa ay noqonaysaa caqabad badan sanadku waa 365 maalmood 365 taas maalmood waxay u dhigantaa 365 tallaabo wax weyn waxa laga yaabaa miskii 5 hadaf ama 5 qodob oo waaweyn qofka noloshiisa kamid ah in uu xaqiijin karo haba u horeyso waxbarashadaada dhaqaalahaaga diintaada dalkaada in aad wax u qabato hadii aadan wax haysan kama dhigan in aadan dalkaada wax u qaban karin wax baad qaban kartaa sidoo kale waxa laga yaabaa wanaagood qabatay dalkaaga iyo dadkaaga u qabatay sax qodobka shanaad oo aad xaqiijin kartid waxa laga yaabaa caafimaadkaaga qofka qorshaha degsanaya waxa laga rabaa inuu isku dheeli tiro horumarinta intooda oo dhan inuu dhammaan ka xeeyo adigoo ku jiro waxbarashada hadii aadan qorsheysanin sida aad dhaqaale ku abuuran lahayd ama aadan lugta meel la gelin waxa aad ka dhigan tahay qof aanan u socon ama aanan rabin sanadkan oo dhan in dhaqaalihiisa isbedel ku dhaco hadii aan isku sheegno waxa la yiraahdaa qofku waxa uu maanta qorsheysto ayuu helaa biri waxa aad maanta qorsheysato ayaad biri heshaa laakiin hadii maanta aadan waxba qorsheysanin oo aad biri u dhigato waxa ku soo socdaan sidaas ayaa la yiraahdaa marka inta badan qorshuhu wax uu ku asteesan yahay ama uu ku salaysan yahay qofka in uu tallaabooyin qaado tallaabo walba markuu qofka qaado waxa laga yaabaa in ay ku dhashaan su'aalahaasina waa halka ay ka dhalanayso geedi socodka nolosha qofka haddaba ilhaani 5 qodob waxa ay naga caawin karaan in qorshaheena uu hagaago qodobka koowaad waxa uu yahay in qorshayaal yar ah aan samaysano tusaale kale waxaan jecelnahay in aan barano luqadda Ingiriiska tusaale kale waxaad rabtaa inaad xifdisid quraanka maalin kasta hadii aad hal bid xifdisid ama hal buug aad xifdisid macnaheedu maxay tahay waa qorshooyin yar ah qodobka labaad waxay tahay in aan diiradda saarno tusaale inaad dhahno oo kale isbuuci waxaan akhrineynaa hal buug oo content page ah qodobka saddexaad oo ka caawin karo qorshahaaga inuu ku hirgalo waxay tahay qorshahaada qaar dadka kale waa inay faa'iido ugu jirtaa qodobka afaraad oo ayadana laga caawin karo wuxuu yahay in aan ka adkaano guuldarooyinka waxaa dhici karta qorshayaal badan oo aad qoratay inay ku hirgeli waayaan ay kugu adkaato marka guuldarooyinka in aad ka guuleysato oo aad ka adkaato ayaa waxay keenaysaa in qorshahaagii aad ku guuleysato qodobka shanaad ahna qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay ku farax guulahaaga yaryarka ah waxaa jirta oraah dhahayso
hadaf walba oo qorshe lahayn waa rajo oo kaliya haddii uu kuu ahaa sanadkan 2021 mid ay kuu rumoobi weyday rajo badan oo aad lahayd dayac noloshaada haddii uu ku dhacay haddaad dib u dhigatay wixii mudnaa qaadir allah fursad kale na siiyee maxaad qaban 2022 miskii qorshaha la sheegayo waa ficil waa tilaabooyin qofka in uu qaado waa dhinaca horumarka inuu qofka tilaabooyin usii qaado 365 tilaabo ayuu inoogu taagan yahay hal tilaabo oo ka mid ah waxa ay fududeyn kartaa in rajada guushaada aad u dhawaato caqabadaha haddii aan rabno in aan dhahno sanadkan ayaan qorsheysanaynaa balse aan isku xijeen in aan helno warqado daabacan qalimaan fara badan kalaro sidoo kale kaloraati darbigii inaad haysatid guud ahaan farshaxan inaad u baahan tahay inaad naftaada u sheekeyso ama aad tiraahdo haddii aan farshaxankaas helin ma diyaarsan karo qorshahayga sanadka waxay u dhigantaa adiga oo aan barrabin in aad qorshahaas samaysato taas bedelkeeda waxa aad isticmaali kartaa qalin iyo waraaq buuggaaga oo aad waxbarashada ku aado taleefankaaga noodkiisa meel walba aad wax ku qorato haddaad rabtid jab waraaq ku qoro sararta madaxeeda gasho ama darbigaaga ku dhegso wax waad samaysan kartaa bilowgaaga qofka haddii asaga uu yiraahdo ma sameyn karo taas waxay ka dhigan tahay asaga uunan rabin inuu shaqada si guud aan uga hadalnay wax walba oo aad u istaagtana waxaa ka imaan kara ama waxaa ka dhalanaya su-aalahana waa waxa loo baahan yahay qof waliba noloshiisa su-aalo ku soo celisay oo rabo oo jawaabo u raadinaya waxaan leenahay wadadii horumarka ayaad haysaa wayna ku dhowdahay guusha horay u soo soco